Shiinaha ayaa ugu baaqay Iiraan iyo Mareykanka in ay ka fogaadaan dib ugu laabashada dagaal kadib burburka wadahadalladii socday. Xiisadda Bariga Dhexe cirka ayay isku shareertay, iyadoo Iiraan sheegtay inay dib u xiri doonto canshuurna ka qaadi doonto markab kasta oo isticmaalaya marinkaas. Mareykanka ayaa dhankiisa isaguna sheegay inuu la wareegi doono ammaanka marinka Hormuz si uu Iiraan uga hortago, asigoo intaas ku daray inuu Iiraan ku soo rogay cunaqabateyn dhinaca badda ah, wuxuuna sheegay inaysan jirin wax u gudbi kara Iiraan. Iiraan ayaa hanjabaadaha Mareykanka ku tilmaamtay kuwo aan suurtagal ahayn, iyadoo sheegtay in Washington aysan awoodin inay qaado tallaabo militari oo Iiraan ka dhan ah. Jawaabtan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku dhawaaqay qorshe lagu xannibayo marinka Hormuz, taa oo si weyn u kicisay xaaladda gobolka. Iiraan ayaa ku adkaysatay inay gacanta ku hayso marinka, iyadoo sheegtay weerar kasta oo ka yimaada Mareykanka uu keeni karo cawaaqib culus oo mas'uuliyaddeeda qaadi doono.